عليكم ورحمة الله وبركاته. isku soo noqosho kale iyo kulan kale oo qurux badan. wadageydaan cishadii dhaweeytay waxaynu ku joojinay cashirkeennii inagoo autonomic soo kala saarnay oo soo kala qeexin iyo xogaaro introduction iyo qaaro comparison ku sameeyay autonomic iyo somatiga oo ka yimid Bertrand Russellka ayaynu soo aragnay. si fiican baynu u soo kala qeexnaan filayaa dad fahmiyaan cashirkan wada weydiin kartaan su'aal waanad Allahumma musta'an heeran jiray maxaa waanad ku soo ceeshan kartaan dad cashir fahmiyaan way haddii istul taagno mid kastaba aan filayaa cashirada taxsada inuu waqti la dheeraaday intaan sahaysiinayni kala gisoo xariijeynayaan insha Allah dul cari doono haddana hore isku fahansiinay wayahay waxaan ka helnaa mid kamid ah autonomic nervous systemka oo sympathetic iyo parasympathetic la qaybinay sympathetic ma soo galnaa sympathetic division magaca waxa la yaqaanaa thoracolumbar outflow maxay ka dhigan tahay jirkeenu wuxuu leeyahay wax la yiraahdo spinal cord cervical thorax lumbar sacral iyo coccyx waxaa samaxay waxa weeyaan Allahumma musta'an waa spinal cord keenii wuxuu leeyahay qayb coccyx la oo 7 lafooda thorax oo la yiraahdo taqana 12 lafood lumbar oo la yiraahdo taqana ay la yiraahdo 5 lafood sacral la yiraahdo 5 iyo coccyx la yiraahdo 1 way marka ninkan la yiraahdo sympathetic wuxuu ka soo kacay isagu labadaas ka soo kaca oo soo kaca waxa la oranayaa sympathetic baa la oranayaa way waa thoracolumbar baa la oranayaa thoraxka iyo lumbar kuwaas ka soo kaca T12ka iyo L2 ilaa L2 baa u gaadhay wada dhameystira L-tana lumbarka ma dhameystiro way halka hadaynu isla fahanay waxaan jeclaan lahaa inaan sii wadno way wuxuu ka kooban yahay lagu leeyahay sympathetic neuronka haddaan kala qeexno cell body of preganglionic motor neuronku wuxuu dhacaa lagu leeyahay thorax iyo lumbarka iyo dhaca macnaha gangliyihiisa isagoo wuxuu dhacaa lumbarka iyo muxuu dhacaa thorax ku dhacaa oo laga helaa wana hore soo sheegnay sympathetica preganglionic axonku synapsku in wuxuu yahay lagu leeyahay lateral and collateral ganglia which are located near the spinal cord away from the organ be innervation hadda waxa jira la autonomic ganglia waxa la jiray autonomic ganglia haasi waxaan noo kala qaadnaa saddex baan kala qaadnaa lateral ganglia oo paravertebral iyo collateral iyo mid kale la terminal markaas lateralka iyo collateralku way isku yidhaahdaan muddo halka uu lateralku ka yahay oo mara matqaanay spinal cord labadeeda dhinac macaan labada lafood ee spinal cord dhabarka gacan kaga muuqda labadiisa dhinac mara surgeonkiisa haday salahan saato kala baasha matqaanay spinal cord ku saatay oo wixii soo dhaxmarayo lafiisa soo dhaxmarayaan hareerahaas ay dhacaysa matqaanay lateralku collateralku wuxuu dhacaa isaguna wuxuu dhacaa qaybta la yiraahdo abdominal artery la yiraahdo ama si kale loo dhigno design taqaanay haddana si kale loo dhigno aorta la garanayaa wuxuu dhaxmaraa calooshin gaar wuxuu ka maraa hore ka horeyso maraa ilaa wuxuu dhaxmaraa diaphragm wax la dhaxmaray dad khadka eegto heli kartaa marka it means halka waxa ah waxa la yiraahdo arteriyada waxay leeyihiin ganglia leeyihiin la yiraahdo celiac ganglia superior mesenteric ganglia inferior mesenteric ganglia saddexdaas ganglia baa ku yaala oo la yiraahdo collateral ganglia oo ku yaala matqaana arteriga isagana arteriga saddex meelood ka yaala marka kuwaasina waxa ay dhacaan oo leeyihiin sympathetic sifo haddana ka socono waxa kooban yahay lagu short preganglionic way kooban yahay lagu neuronkiisu wana cholinergic wuxuu kooban yahay lagu short preganglionigiisu waa acetylcholine haddii acetylcholine neurotransmitter tahay maxaa la oran jirnay waa cholinergic postganglionigiisuna wuxuu doonaa waa lateral collateral waan soo qeexnay
iyo oo target organka macnaha ka fog mataqaanaa post ganglionkiisina waa long waana wuxuu noqon doonaa adrenergic sababtoo ah norepinephrine ba oo ah neurotransmitter waan ka soconaynaa markaan leenahay waxyaabaha uu qabto sympathetic waxa kamid ah horta isagu waa fight and flight response marka dagaal iyo car ku jirta weeyaan waxa shaqeeya lagu yiri adrenal medulla oo iyadana soo kale soo deysa epinephrine oo epinephrine kan maxay haayeen waa kuwa lagu soo deynaya adrenal medulla ee sheegina muleysa sympathetic maamulay epinephrine kan waxay activate garaysaa inuu sympathetic jirkeena ka dhaco si ay fight and flight u imato waxa kamid ah metabolic rate kordhiya oo gaajada macnaheedu dadka orday soo kale caymada soo kale waxaad u baahan tahay markasta energy iyo waxaad u baahan tahay waxaad quudato iyo wixii ku store garaysnaa la isticmaalo sidaa daraadeed sympathetic u dalacaa waayahay wuxuuna increase garayaa sidoo kale cardiac output-ka xilliyada exercise-ka iyo excitement-ga wuxuu heart-geena cardiac output macnaha blood-ka cardiac wadnihiina inta output oo tuuraya macnaha oo jirkeena u tuuraya oo aorto qaado jirka uu kala faafinayo ayuu badinaya halka maxaa ka cad inuu blood-ka jirkeena badinayo waayahay exercise and excitement xilliyada exercise-ka iyo excitement-ga in general excitatory to almost part except the gastrointestinal tract jirkeena dhammaan uu wada excite garaya ninkan loo yaqaan sympathetic marka laga reebo gastrointestinal oo isagu inhibit ku sameyn inhibition effect of GIT ama gastrointestinal tract wuxuu keenayaa inuu yareeyo function-keeda ayuu ku keenayaa waa sympathetic waayahay haddana waxaan soo sheegnay qorayno sawiraynay qaybta oo sympathetic visual ama sympathetic ka yimaado haddana anagu soo sheegnay meelaha ka yimaado intermediate lateral line dhammaan anagii soo sheegnay mataqaanaa autonomic-gaba xiisadeenii hore lahayn waxay ka wada yimaadaan dhammaan intermediate qaybtani mataqaanaa dorsal waxay ka yimaadaan mataqaanaa soo sheegay runtii maxaa lateral party ka yimaadaan anaga hadda soo kala sheegnay qaybta waxa la yiraahdaa ventral la dhahay qaybtana dorsal la yiraahdaa anaga qaybta lateral ku inooga imanaya dhammaan autonomic-gu way was ka sawir iska dhaafi karnaa halkan waxay nooga muuqdaa sympathetic wuxuu ka yimaadaa T1 up to ilaa L3 ilaa L4 inta u dhaxaysa ama L2 inta u dhaxaysa ay ka yimaadaa mid kasta markaas wuxuu ku qoodanayaa markaan leenahay sympathetic trunk baa jira waxa la yiraahdaa sympathetic trunk-ga waxaan loo kala qaybin jiray afar baa loo kala qaybin jiray waxa la yiraahdaa cardiac plexus la yiraahdaa waxa la yiraahdo Allahu musta'an waxa la yiraahdo sympathetic ganglion superior mesenteric ganglion inferior mesenteric ganglion okay celiac ganglion Allahu musta'an intaas loo kala qaybin jiray markaas adoo soo sheeg maxay danay sympathetic-gani ninkan sympathetic la yiraahdo wuxuu ku qoodiyaa dhammaan jirkeena kala duwan si ay fight iyo flight u helaan si ay u activate garooba jirkooda si mataqaanaa ay tusaale ahaan oo kale marka laga reebo jirkeena uu activate gareeyaan loo sheegay marka laga reebo GI-ga oo GI-ga muxuu ka abuurayaa GI-ga inhibitor buu ka abuurayaa inhibition buu GI-ga ka abuurayaa way waa iska sawirintan intuu kala fahmi kartaa marka waa kaas chain-kaas wuxuu haynayaa face-ka iyo wixii lamid ah wajiga facial expression-ka iyo submandibular-kii wixii waa kan submandibular iyo sublingual-kii macnaha ay soo sideynayaan qandhooftii waxani waa oo kuwa halkaas oo kale ku supply garanaya heart-ii oo kale markuu ay wadnaha garaacaysa soobayo marka mataqaanaa tusaale ahaan halkan markuu tagayo mataqaanaa lungs markuu tagayo oo bronchioliska u dhaqmayo macnaha meesha airta martay hawada martay u dhaqayo halka liverka uu tagayo kale marka uu tagayo calooshiina GI-ga intestine-kiina tagayo markuu kidney-da tagayo markuu bladder-ka tagayo markuu skin-ka tagayo waa kan waxaasoo dhan buu dhaqmaya macnaha sympathetic waayahay haddaan ka soconno waa isla sidii uun sawirkii loo sii socdo weeyaan kolley wax inagu soo kordhinayaa ma jirto meesha ka imaado inoo sheegay craniosacral inuu ka imaado yaa craniosacral macnaha parasympathetic ka imanaya halka inagu kaan wadanno inoo ah sympathetic oo inooga imanayo thoracolumbar
وسوى حسب لا يجرينين وكأسيتال كولين بريسيبناتيكيس أهم جدا بريكان غاليونيكيس هل كينور بالفرينوتاي بس كان غاليونيكيس نيرو ترانسميتر واي هاي وصل صوركم بشاغيا wax ku cusub ma jiro kulay intaasan caaw maanta ku deysayna insha Allah sababtoo waxaan jecelahay inaan inta isla faano si uu ka soo inoo kala caarin halka wax ku dhameynaa semitatiga waxaan jecelahay in habeen kala ka dhigano ama cishada kala ka dhigano baar semitatiga wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh